waalidiin mahad celinaya guud ahaan dadka madashani ka soo qayb galay iyo sidoo kale cidii soo abaabushay waxaan u mahad celinayaa mas'uuliyiinta sharafta leh ee waqtigooda u soo huray sidoo kale qayb ka ah munaasabadan inay qabsoonto haday shirkad tahay iyo haday shakhsi tahay iyo haday organization tahayba aad baan ugu mahad celinayaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa ururka madashani inoo soo abaabulay hirgeliyay inuu bandhigani caawino qabsoomo ururka Sofio iyo gudoomiyahooga aad baan iyaga ugu mahad celinayaa aniga magacaygu waa Nasteexad Daawud Saciid kulay way gaadibaan filayaa walaashiyo ismaan lahayn halkan aad imanaysaa waayo mas'uuliyiiniga waaweyn baa ka hadlay sidoo kale halabuurkii waa isaguna in badan inoo sharaxay hibadani uu la yimiday marka waxaan idhaayay ma hadhin laakiin waxaan maan oranayaa aynu isgarab istaagno hadaynu dhalinyarnahay oo keena isagu leeyimaada fikrad taasi oo wax ku ooleyna anfacaysa yeynaan iyad jabinin ha soo dhaweyno aynu sacabtano inagu markaynu taageerno ayaynu bulshada qaybaheedii kale ula tageynaa oo haday tahay dabaqadii inaga daadweyneed iyo kuwii kale balkaasaynu la hortagi karnaa laakiin inteena isku age-ka ahi marka hore aynu noqono kuwa iyagu isku tiirsan iska warhaya isku hambaliyay isgarab taagan walaalkii Mucaad Xuseen Xasan kolkii ugu horeysay aanu barodhagiisan arkay Facebook aan ka arkay Mucaad aqoon fiican baan u lahaa laakiin ma aan lahayn waxyaabaha uu ku jiray hawlaha uu sameeynaya markii aan arkay waan la soo xiriiray waxaan ku ri ma adiga sameeyay haabi buuri waxay la ahayd sawirada iyo waxyaabaha uu ka sameeyay markii aan arkay waan la tacajubay deedna waxaan isku dayay inaan la kulmo oo weydiiyo wixii uu ka sameeyay dhamaan waxaan ogaaday haday tahay saamuunta saliida creamka guud ahaan waxyaabahan oo caawa horteena keenay oo dhanba inuu ka sameeyo dhirteena naturalka sida liinta huruuda iyo waxyaabaha noocaasa kulay khatar badan kuma jirto hadaynu dumarnahay waynu noqonaa waxaynu guriga markaynu joogno isku qurxinaba waa waxyaabahaasi naturalka marka intaynu kulay waad aadi lahay suuqa waxyaabaha aynu garanayno la noo soo mooriyay soo iibsan lahayn waxa wadankeena lagu sameeyay wiilka walaalkeena sameeyay la inaga hubo inaynu isticmaalnaa muhiima aad baad u mahadsantihiin waan hambalyeynaya walaalkii Mucaad waxaan leeyahay waan ku garab taaganahay halka ka sii wadadaal dheeriya ururka Sayo oo ka tirsanahay sidoo kalena hay gudoomiyahooda ka gobolka Awdalhaana way ku hambalyeynayaan ku garab taagayihiin guud ahaan way ku soo salaamayaan aad baad mahadsantihiin sidoo kale bahda saxaafadda oo ka tirsanay laftarkoodu aad ay walaal ku hambalyeynayaan wad mahadsantahay